baabuur kaas noohada ah cusub oo meesha yaala iyo qoragaas aka iyo lix ka sanadood diyaariga ah ninkii shabaaba oo la yaqaan qorigiisa buushkiisa wata nooli giiri labada mid ku kaysta madax ma rabo abaabulkii ugu ballaarnaa ee howlgalka dhanah maleeshiyada kooxda khawaarijta al-shabaab iyo ciribtirkooda ayaa laga dareemayaa degmada halgan iyo deegaanada hoos yimaada ee gobolka Hiiraan iyadoona si wada jira ay u wadaan abaabulkaasi ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa dib u xiraynta deegaanka ee loo yaqaan Macusley taliye Joolal Xuseen oo kamid ah saraakiisha ciidamada dawladda ee ku sugan degmada halgan ayaa waxa uu la hadlay boqolaal ka tirsan ciidamada deegaanka wadigu cilin baabuur kaas noohada ah cusub oo meesha yaala iyo qoragaas aka iyo lix ka sanadood diyaariga ah ninkii shabaaba oo la yaqaan qorigiisa buushkiisa wata nooli giiri labada mid ku kaysta madax ma rabo babidiisii oo madax ma rabaan iyo gacan iyo waxaas waxna casdiliin ma rabaan nin shabaaba oo dadka deegaanka waa kuwa ceel dheer ku oola oo farqalaal jooga oo tayag jooga qoragaas kuuriyaanka iyo lix ka sanadood nin alla ninka ku kalsoontiina adigu dhibay gaarigaas furiis wallahi ka taliga maanu billah ninkaad rabtiin hebel u dhiibnaad diyaaro saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa sheegay in ay dhawaan cagta mari doonaan dhammaan deegaanada ay ku dhuumalaysanayaan maleeshiyada kooxda khawaarijta ee deegaanada jiinka ugu Shabeelle maalmihii aan ka soo gudubnay si dhuumalaysi ku imaanayay annaga ka maamul degmo ahaan gaar ahaan xafiiska amniga Macusleyda waana dagaalamayna taliyaha amaamirta uu sheegayna waa fulinayna iyadoo maaragtay amaamirtii dawladda la qaadarayo oo shabaabka cadow noo yahay muhiimadda koobaad marka waa ismaqal waay reer halgan horta sideeda banaanba dadku waa xantaan waxaa lagu xantaa inayna dagaalamin waana dagaalanaa lama oga waxaan rabnaa marka taliyuhu soo nala joogo inaan horta dagaalkayna caddayna maalin cad marka waana dagaalami jirnay ciidamada dib u xiraynta deegaanka ayaa kaalin ballaaran ka qaatay howlgalladii ballaarnaa ee gobolka Hiiraan laga safeeyay khawaarijta iyagoona ka barbar dagaalamayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdishakuur Ismaan Ali warbaahinta qaranka Beledweyne.